munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horeeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar afayeenka golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada Mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar iyo Marwe Sucaad Axmed Faarax mas'uuliyiinta xafiisyada heer deegaan kuwa heer gobol agaasinada xafiisyada heer deegaan shaqaalaha dawladda saraakiisha ciidamada iyo xubnaha ciidamada odayaal dhaqameedka sida garaadada salaadiinta ugaasyada waxgaradka cuqaasha culmowdiinka haweenka iyo dhalinyarada ayaa waxay munaasabaddan ahayd mid lagu bixinayay lacag iyo abaalmarin taasi oo la guddoonsiinayay xubnihii ciidamada gaarka ee liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee isugu jira xubnihii u shahiiday nabadgelyada deegaanka kuwa ku naafoobay howlgalladaasi iyo kuwa nool ee iyagu soo hoyay guulaha laxaad kale iyo nabadgelyada ay ku naaloonayaan shacabka deegaanka lacagtan oo ah 13 milyan iyo 300 oo bir ayaa ah mid ay soo kala xareeyeen shirkadaha Kali iyo Rajo haddaba shirkadda Kali oo ah shirkad ay leedahay mid kamid ah muwaadiniinta deegaanka taasi oo ka ganacsata jaadka la geeyo gobolada Shabeelle iyo Qorraxay ayaa muddadii 5 bilood ahayd ay shirkadani Kali ay shaqeynaysay iyadoo ay bishiiba 20 cisho shirkadani ay geenaysay jaadka ayaa waxay shirkadani percentage u goysay faa'iidadii ay ka heshay ganacsigaasi ciidamadii shahiiday iyo kuwa ku naafoobay sugidda nabadgelyada shacabka deegaanka waxayna muddadii yaraad ee shirkadani ay shaqeynaysay ay ugu deeqday lacag dhan 5 milyan iyo 300 oo bir iyadoo ay welina sii wada shirkadu taageeradeedii dhanka kale shirkadda Rajo ah shirkad ay ku bohoobeen xubnaha ciidamada ku naafoobay howlgalladii nabad sugidda deegaanka iyo agoonta ay ka tageen xubnihii u shahiiday inay gutaan ballanka ay ka qaadeen shacabka deegaanka oo ahaa in haba yaraatee wax nabadiyadu uusan ka dhaqdhaqaaqin gudaha deegaanka ayaa waxay sidoo kale shirkadani Rajo ay ka ganacsanaysay jaadka taasi oo bishiiba 10 cisho geenaysay gobolada Qorraxay iyo Shabeelle waxayna muddo 8 bilood ay shirkadani ay shaqeynaysay faa'iidadii ay heshay ay ugu deeqday ciidanka adduun lacageedu gaadhiya 8 milyan oo bir oo lacagta dalkan Itoobiya waxayna shirkadani Rajo ay maanta ka mid tahay shirkadaha raashinka canshuur dhaafka soo dejiya deegaanka iyadoo 28 shirkadood ah shirkadaha soo dejiya raashinka canshuur dhaafka ay ku midoobeen dalladaas oo magaceeda la yiraahdo dallada horumarinta agoonta deegaanka ee Iftiin oo ka howlgasha dhammaan 9 gobol ee deegaanka taasi oo dhammaan 68 degmooyin 4 maamul magaalo ee deegaanka agoonta ku sugan ay ku leeyihiin percentage haddaba marka la isku daro gudaha lacagta ay soo xareeyeen labada shirkadood ee la guddoonsiinayay xubnihii ciidamadii shahiiday iyo kuwa ku naafoobayba ayaa waxay gaaraysaa 13 milyan iyo 300 oo bir lacagtan oo la guddoonsiiyay xubnihii ku naafoobay sugidda nabadgelyada shacabka deegaanka iyo heladii ay ka tageen xubnihii ku shahiiday sugidda amniga deegaanka ayaa waxa lacagtan guddoonsiiyay odayaal dhaqameedka deegaanka xubnahan waxa weeyaan xubnihii hadda shiitamay marka 300 kun weeyaan kasoo lacagtan la guddoonsiiyay xubnahaasi ayaa waxa sidoo kale abaalmarin la guddoonsiiyay saraakiishii ciidamadii ku guuleystay inay tirtiran ayna laayaan qaar kamid ah saraakiishii ubo oo lagu abaalmariyay shahaado sharaf ka timid ciidamadii difaaca qaranka oo gacantiisa ku guddoonsiiyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyadoo sidoo kalena lagu abaalmariyay in loo dhisay 2 filo iyo waliba 2 gaari oo nooca casriga ah munaasabadani abaalmarinta ah ayaa waxa ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo sheegay in xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay siinayso markasta xubnaha ku naafoobay sugidda nabadgelyada deegaanka iyo xubnihii shiiday iyagoo ku guda jira gudashada waajibaadkooda taageero joogto ah sidoo kalena xubnahan ay xukuumaddu ku xareynayso kuliyadaha lagu barto tababarada iyo xirfadaha ee ku yeela deegaanka si loo baro xirfad maguuraan ay ku shaqeystaan mustaqbalkooda iyadoo sidoo kalena awlaadii xubnihii halyeeyada ah ay u shiitamay sugidda nabadgelyada deegaanka ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya awlaadooda ay u sameysay dugsiyo hoy ah oo ay ka helaan waxbarasho jiif cunno caafimaad iyo ka warhayn badanba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa intaas waxa uu raaciyay in loo baahan yahay in maamulada shaqaalaha dawladda iyo shacabka deegaankuba ayna marnaba ka gaabinin ka warhayntooda maadaama ay laxaadkooda u waayeen sugidda nabadgelyada shacabka deegaanka markii ay waxa weeyaan u dhinto ciyaal bulee hooyuu leeyahay dad baa u gablamaya oo meesha ka baxaan ku soo noqonaynin caruurtiisii mataqaanaa xaasaskiisii sida adigu xaaskaaga iyo carruurtaada u jeceshahay ay adiguna waxa weeyaan carruurtaada ku jecel yihiin ay walaalkaa ku jecel yihiin dad ka dhashay dadka dhimanaya banaan may ka soo bixin hooyo u ooyeysa aabbo u ooyaya walaal bay leeyihiin waa arkaysaan iyagoo lagala halkaas soo istaagi doonaan xaqiiqiina marka mataqaanaa dadkan waa dadkii waddanka u shiitamay yaa dagaal geli haddii carruurtiisi gaajaato yaa dagaal geli yaa mataqaanaa la maqli nin kasta waxaa la dhihi mataqaanaa halkaas shalay kii dhintay marka carruurtiisi bannaanka la soo daadiyo cidda mataqaanaa dambe xabad geli waayo waa in dadka shiitamay iyo agoontan hoos loo eegaa haddii agoontan iyo dadka shiitamay iyo kan lagu hala aan u ixtiraamayno oo nin haliyay oo waddanka u soo halgamay aan u qori weyno adigana maxaan ku raacidna kuu qori mayso
dhimasho meel ka sareyso ma taqaanaa haday jirta ma jirto ciqaabka weyn ma jirto way dhinteen way maxaan ku raaye u shiitameen haddana see lagu caawiyaa maxaan sameynay marka haddaba qofkii markuu shiitamo lacag baa laga ururiyay ciidanka liibooliska lacag baa haystaa oo laga ururiyay ma taqaanaa mid kasta ma aha dhib ha jira ma jirin 300 bir 200 bir bil walbaba ciidanka oo dhan lacagtaas marka ma taqaanaa dadabisnimo sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay odayaal dhaqameedka deegaanka iyo qaar kamid ah mas'uuliyiintii horaan xilalka uga soo qabatay deegaanka oo sheegay inaan marnaba la ilaawi karin birmadkii nafurista ah ay sameeyeen halyeeyadii shahiiday iyo xubnaha naafoobay ee isu taagay in sugan ammaanka shacabka deegaanka loona baahan yahay in la sii xoojiyo dadaalada lagu garab istaagayo xubnaha naafoobay iyo kuwa shahiiday eheladoodaba marar badan baynu dhageysanay deegaanka dhibaatada taalay siday ahayd markaan wax yar ka xusno xaalad khadhaadh oo murugsan inay taalay giddigiin waad wada xusuusantihiin xaaladaas fadliga ilaahay baynu kaga baxnay iyo hogaaminta xisbigeenna iyo mas-uuliyiinteenna waxaa la yidhahdaa man lam yaxmid innaas laa yaxmid illaah ruuxii aan ilaahay aan dadka waad mahadsan tahay dhihin ilaahayna waad mahadsan tahay dhihi maayo marka inaan idhaahno waad mahadsantihiin ayay inaga mudan yihiin markaan ka hadalno nabadgelyada iyo deegaankeenna annagoo mas-uuliyiintii hore ah ayaanu madaxweynaha safar u raacnay oon goday tagnay waddada aan soo marray 11 galabnimaan ka soo baxnay goday 5 saac markay ahaydna halkan aan joognay oo habeennimo ah taas marka waxay ku tusaysaa tilmaam meel kasta oo annagoo 30 uuraal wadana aan maraynay oo ay qabri jeerar ka mid tahay oo dhowr habeen loo sii dhaxayo ayaanu istaagaynay taas marka dadaal bay ku timid marka fikirka madaxa bannaan ee caqliga aan la helo ayuun baa jirka la hogaamin karaa markii fikirkii madaxa bannaanaa ee caqliga ku dhisnaa la helayna waa la hogaamiyey taas marka inagoo ka ambaqaadayna waxaa sabab u noqday inay deegaankan dhibaatada cid ka xanuunsata la helo oo ay u dhaqdhaqaaqaan oo u dhintaan iyadoo aynu tii ka markhaati kacaynana maanta munaasabadan lagu maamuusayo ee lagu martigelinaya aynu goobjoonka ahaano sidaas darteed kuwanu waxay kaga duwan yihiin dad dhibaataysan oo dhibaata soo gaadhay oo musiibooyin kale oo dabiici ah ku dhacay laakiin waa kuwa laxaadkoodii iyo xooggoodii noo huray waxay inaga mudan yihiin xanaanadaas la bilaabay in madaxweynaha la sii xoojiya hala laban laabaan leenahay caawa waxaana ka farxad noo ah nimanka iyagii horay waddankan wax yar iyo wax badanba ka soo shaqeeyey inaan caawa goobjoog u noqonno munaasabad qaaliya oo markii ugu horeysay deegaankeenna ka dhacda inamadiibaa u shiiday inamadiibaa u dhaawacmay kaas ilaa intuu maaragtay saacadiisu gaadhayso laxaadka lahaa inaku nooga baahan yahay inaan ilaalino xanaanayno waxaan leeyahay ciidamada liiga hambalyaan leeyahay xukuumadda deegaankana halkaa ka sii wada dadaalka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta labada shirkadood ee kaali iyo rajo oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay halkaa ka sii wadaan dadaaladooda ay ku garab istaagayaan xubnihii shahiiday iyagoo gudanaya waajibaadkooda islamarkaasina ku dadaalaya inuu deegaanka soomaalida noqdo deegaan xasiloon oo ay shacabku deegaanku guryahooda nabad ku galaan nabadna kaga soo baxaan iyo sidoo kale xubnaha haliyada ay ku naafoobay isku soo wada duuba ma ahan markii ugu horeysay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ay abaalmarino iyo lacag ay guddoonsiiso xubnihii shahiiday iyo haliyada ku naafoobay sugidda nabadgelyada shacabka deegaanka iyadoo xukuumaddu si dadban iyo si toos ah ay mar kastaba u garab taagan tahay ilaa iyo maanta